munaasabadani oo ahayd mid musharax madaxweyne ku xigeen dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug wadana Saadiq Cabdullaahi Xaashi Dhagaqool oo bulshada kula hadlayay isla markaasina uu jeedinayay qodbadiisa ku aadan musharaxnimada xilka madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaana ka qayb galay xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka maamulka caasimadda Dhuusamareeb hoggaanka dhaqanka deegaanada Galmudug siyaasiyiin iyo qaybo kala duwan oo bulshada kamida dadweynihii ka qayb galay munaasabada ayaa musharaxa si weyn u soo dhaweeyay waxa ayna sheegeen in ay ku garab taagan yihiin mas'uuliyadda uu soo taagay gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimadda Galmudug mudane Nuur Cilmi Cabdulle ayaa goobta ugu horeyntii ka hadlay waxa uu sheegay in ay si dhow la shaqeyn doonaan musharaxa haddii uu xilkaasi ku guuleysto waa aragtaa bulshada caasimaddu siday ugu heeloo yihiin iyo reer Galmudug oo dhan cid kasta oo hamiga Galmudug korka yeeli karta insha Allah waxaan leenahay reer Galmudug waxay u baahan yihiin maamul loo leeyahay iyo dad hore u dhaqaajiya mudane waxaan ku rajaynaynaa guul waxaan diyaar u nahay haddaad guulaysatay inaan ku garab istaagno kulley waxaan ka midaysanahay inaan kuu ducayno oo wixii khayr ah ilaahay ku waafajiyo Suldaan Bayle iyo nabadoon Cabdinaasir Jaamacseed oo ka mid ah saxayaasha dawlad goboleedka Galmudug ayaa ka sheegay munaasabada in musharax madaxweyne dawlad goboleedka Galmudug Saadiq Cabdullaahi Xaashi uu mudan yahay inuu Galmudug hogaansho isla markaasina ay ku boori doonaan xildhibaanada soo bixi doona inay codkooda siiyaan waxa sidoo kale ka hadlay kulanka qaybo kamid ah bulshada sida dhalinyarada iyo haweenka waxaan soo dhaweynayaa murashaxa madaxweyne Saadiq Cabdullaahi Xaashi waxaan ku leenahay sidii roobkii baa loo sugay in Galmudug hogaami kara oo la garanayo raadkiisa iyo backgroundkiisa iyo meeshuu ka soo jeedo aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa ilaahay waxaan kugu ducaynayaa inuu kaa dhigo listii Galmudug ficilha oo lagu nasan lahaa midda labaad si kalsooni aan u harahay oday Suudaana oo saxiixa ah waxaan ku balan qaadayaa daalayno xildhibaanada furaayo inay ku doortaan Saadiq haddii aan wax yar warbixintiisa ka bixiyo shakhsi ahaan iyo magacyada halka ku qoran ilaa Xaashi ilaa Jaamac Geri waxa weeye dad taariikh halkan ku leh dhaqan iyo culummo intaba ka soo jeeda oo la yaqaan oo Galmudug ay yaqaanaan weey laba saata waxa uu wax bartay oo runtii aqoontiisu maanta ay tahay aqoon deegaankan looga baahan yahay waxtarna u ah waxaan leenahay musharax soo dhawow deegaankaad u dhalatay caasimadda aad joogtaa Galmudug waxaan leeyahay soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa ururka haweenku sidada nabadda horseedkeedii weeyeen waxaan kugu soo dhaweynaynaa si farxad leh salaam wanaagsan soo dhaweynaya balyan kugu soo dhaweynaa waxaan ku leeyahay mudane musharax mudane madaxweyne ku xigeen soo dhawow sidii hore ugu soo dhaweeyay si lamida ku soo dhawow Galmudug deegaankaagii iyo dadkaagii aad ku dhalatay ka warqabtay haddana aad u taagan tahay hoggaankiisii iyo samata bixintiisii iyo hagaajintiisii xildhibaan Cabdixakiin Macali Axmed oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa munaasabada ka hadlay intii hadda aan isla joognay ee aan baranay nin wanaagsan ee macna badan leh ee taariikh iyo background fiican leh sidii laga soo sheekeeyay mujtamaca iyo dadka hadduu hoggaan noqdo wax ka bedeli kara inuu yahay baan ku arkay intii hadda aan isbaranay marka aad bay fursad noogu tahay soo sharaxidaada waan rajaynaynaa insha Allah in kale oo mudan iyaguna inay kursigan soo raadiyaan wayna imaan doonaan wayna yimaadeen ugu dambeyntii musharax madaxweyne ku xigeen dawlad goboleedka Galmudug Saadiq Cabdullaahi Xaashi Dhagaqool ayaa u jeediyay bulshadii ka qayb gashay munaasabada qodbadiisa ku aadan musharaxnimada waxa uuna diiradda ku saaray dhinacyo kala duwan isagoona dul istaagay in uu xididada u siibi doono suuqmaasuqa xareeyay maamulka Galmudug isla markaasina sidoo kale uu xoog saari doono sidii loo heli lahaa Galmudug midaysan oo wax badan ka qabata horumarka iyo himilooyinka ay higsanayaan shacabka ku dhaqan deegaanada Galmudug haddaan ka hadlo dawlad wanaagga mudanayaal iyo marwooyin
waxaan ka shaqayn doonaa in galmudug ay hesho dawlad lala xisaabtami karo oo ku salaysan hufnaan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan aaminsanahay haddii la helo go'aan ah in aan la dirirno musuqmaasuqana ragaadiyey kana dhigay dowladda galmudug ilaa maalintii dhidibada loo aasay mid aan wax horumar ah ku soo kordhin bulshada iyo deegaanka galmudug midnimada galmudug walaalayaal waa arrimaha ugu horeeya ee aan si wada jir ah aan wax uga qaban doono annaga oo u wajahana dariiqa saxda ah ee dib u heshiisiinta bulshada walaalaha ah isla markaana ood wadaagga ah annaga oo kaashanayna duubka waxgaradka ugaasyada iyo dhalinyarada dumarka hay-adaha ugu muhiimsan ee baarlamaanka mudanayaal iyo marwooyin waxaan u qoondayn doonaa miisaaniyad midnimada iyo xalinta khilaafaadka si loo gaaro galmudug la wada leeyahay oo mid ah idinka alleh daahir maxamuud cabdi daahiryare dalka TV dhuusamareeb